sidee ayay shirkadaha kale Apple, Nvidia iyo Amazon uga soo bilaabeen meel aad u yar ugu dambeyntiina ku noqdeen boqortooyooyinkan mid walba qiimaheedu kor u dhaafay trillion dollarka waa maxay sheekooyinka ku daahsan guusha shirkadahan hadaba muuqaalkan maanta kuma baran doontid oo kaliya taariikhda saddexdan shirkadood sidoo kale waxaan kala furi doonaa go'aamadii ugu waaweynaa ee bedelay shirkadahan khaladaadkii ay ka gudbeen iyo waliba sariir ganacsiga ka dhigay kuwa ugu waaweyn dunida ayadoona casharadaad ka baran doonto shirkadahan ay gebi ahaanba bedeli doonaan fikirkaaga dhaqaale sidoo kale ha ilaawin in hal fikir aad ka dhaxasho shirkadahan ay ka xigta aasaasta ganacsigaaga mustaqbalka marka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato sidee fikrada yaryar isugu bedeleen boqortooyooyinkan ku fadhiya trillion dollarka iyo waliba sida aad adiguna uga qaadan karta casharo noloshaada wax ka bedela muuqaalkan waa muuqaalkaagii markay igula soo dhawow sheekada ku dayashada mudan ee Apple, Nvidia iyo waliba Amazon saddexda shirkadood ee ugu waaweyn dunida anaguna ku bilaabi doona shirkadda bedeshay guud ahaan caalamka taleefanada sidoo kalena shirkadda labaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida ee Apple intii u dhaxaysa 2021 ilaa 2023 Apple ayaa ahayd shirkadda ugu weyn caalamka oo dhan laakiin markii la gaaray 2024 Apple ayaa timaaday kaalinta labaad maanta marka la joogana shirkaddan Apple ayaa hoos soo dhacday ayadoona soo gashay kaalinta saddexaad sidoo kalena ay ku hormareen shirkadaha Microsoft iyo waliba Nvidia hadaba sidee wax u dhaceen inta aynan waxaas oo dhan ugu digelin waxa qasab nooga inaan hal mar dib u laabano si aan bal isku ogaano taariikhda company-gan iyo waliba sida ay wax walba ku soo bilowdeen hadaba sheekadan Apple ayaa soo bilaabanaysa taariikhda markaad 1970 markaas ayna kombiyuutaradu hayeen wax qaali ah sidoo kalena xajmigoodu aad u weynaa ayadoona ay isticmaali jireen oo kaliya dawladaha iyo waliba shirkadaha waaweyn oo kaliya sida yaataba oo waqtigu soo dhaafin maaladan lagu magacaabo microchips oo ahayd aalad soo koobaysay xajmigii weynaa ee kombiyuutarada ay waqtigaas u baahnaayeen aaladan oo isla markaas qaadaysay waxay qaadi lahaayeen kombiyuutar leeg xajmiga guryaha sidoo kalena aad u waaweyn ayadoona boqorka aaladahan waqtigaas ah company lagu magacaabay IBM oo waqtigaas ah company-ga ugu weynaa ee technology hadaba waa waqtigu soo baxay ninkii ugu muhiimsanaa marka ay timaado kombiyuutarska iyo waliba soo bixidii Apple ninkaasina cid kale ma ahayn waa Steve Wozniak ninkan oo ah shakhsiyaadkii ugu horeeyay oo ku fikra samaynta kombiyuutar qaasa sidoo kalena uu qof walba wadan karo ayadoona Steve kan waa shakhsi aad u danin jiray sidoo kalena aad u jecel technology-ga ayadoona ugu dambeyntii 1974 ay halkii ku kulmeen saaxiibkiisana aan ka dhicinay Steve Jobs oo asna waqtigaas dadkan daninayay kombiyuutarska iyo waliba technology-ga cusub halkaas ay ugu dambeyntii labadan nin ku saaxiibeen ayadoona sanadii 1976 ay si wada jir u bilaabeen inay soo saaraan kombiyuutarada yaryar sidaas darteedna ay kula tartamaan shirkadii waaweynaa ee balaayiinta dollar ku fadhiyay waqtigaas sidoo kale xisaabta ku darsan labadan Steve ayaa waqtigaas kuwaan haba yaraatay waxba ka nixin ayadoona kambanigoodan yar ay ka dhiseen geerishka waalidiinta Steve Jobs halkaas ay ku soo saareen kombiyuutaradoodan yaryar ayadoona dabayaaqadii 1976 ay halkii ku soo saareen kombiyuutarkoodii ugu horeeyay ee Apple I kombiyuutarkan oo waqtigaas mid aan lahayn haba yaraatay wax iskriina sidoo kalena mid qaali ah marka la fiiriyo lacagta ay ku iibinayeen hadaba noocan kombiyuutar ay sameeyeen 200 oo xabo halka laga iibsaday oo kaliya 50 xabo taasoo noo soo xareysay qiimo gaaraysa $30,000 waxay yaataba inkastoo bilowgaas koobaad ahaa mid khasaare ah haddana $30,000 oo waqtigaas wax xun ma ahayn ayadoona Steve waqtigaas u baahnaa oo kaliya cadaynta ah inuu ogaado in dadku waqtigaas ay u baahan yihiin kombiyuutarada iyo in kale ayadoona kadib markii uu ogaaday sida ay dadku ugu baahan yihiin technology-gan cusub ay markale labadan shaqo galeen si ay u soo saaraan kombiyuutarkooda xiga ee Apple II kombiyuutarkan inuu dhisi doonaan qaab casri ah sidoo kalena dhammaystiran laakiin dhibaatada kale jirta ayaa in technology-ga waqtigaas aysan saamaxayn waxa ay raggan maskaxdooda ku hayeen iyo sida ay wax u rabaanba laakiin Wozniak ayaan waxaas oo dhan dhag u dhigin asagoona dadaal badan iyo isku xidhiidh badan isku keenay jibsiyo badan oo kala duwan halkiina ku soo saaray kombiyuutar kale oo sidoo kalena la graphics iyo waliba colors kala duwan ayadoona sidaas ay tahay haddana wali kombiyuutarkan ayaa mid aan waxoogaa qurux badnayn sidoo kalena yara qadiimiya inkastoo uu kii hore aad ugu duwanaa hadaba waa meesha ay Steve Jobs shaqadiisu si toos ugu bilaabmatay ayadoona halka Steve Wozniak ay shaqadiisu ay dhanka injineernimada uu sidoo kalena Steve Jobs mid ku dheereeyay dhankaasi suuqgeynimada iyo waliba qancinta dadka ayadoona markay timaado dhinaca qancinta uu ninkan mid aad cabqari u ah asagoona shakhsiyaadkii ugu horeeyay aaminsanaa in productiga iyo shakhsiga laga dhex abuuro cilaaqaad midanoona waqti xaadirkan aad loo adeegsado sidoo kalena ay isticmaalaan shirkadaha ugu waaweyn dunida hadaba taariikhdu markaad 1977 Apple ayaa markale soo daafiyay design-koodii cusub ee Apple II kombiyuutarkan oo sida ay filanayaan markiiba wada geliyay sidoo kalena suuq aad u weyn u sameeyay Apple waqtigaas ayadoona Apple ay waqtigaas u bilaamatay bilaabasho cusub waxay yaataba laakiin isla waqtigaas waxa sidoo kale halkii ku soo daafiyay inta shakhsiyadda dhabta ah ninkan lagu magacaabay Steve Jobs hadaba inkastoo ninkan markay timaado shaqadiisa waa nin aad u caqli badan sidoo kalena aad cabqari u ah haddana arrinka kale jirta ayaa ninkan waa nin aan haba yaraatay la shaqayn karin heer xitaa dadkii la shaqaynayay ku tilmaamaan ninkan nin aad u xanaaq badan sidoo kalena aad u dulqaad yar isla markaasna shakhsiyadiisu ay tahay mid aad qariib u ah
waxay haataba dhanka kale soo saaridii Apple II ee guulaystay kadib Apple ayaa halkii ka sii socotay ayadoona sanadadii xigay mar ka sii dambeysay saleskoodii kurisii kacay ilaa ugu dambeyntii la gaaray 1980 markaasayna Apple ku soo biireen maalqabeeno kale iyo waliba maamulayaal kale oo badan sidoo kalena uu kambanigii halkii ku noqday mid public ah sidoo kalena laga diiwaangeliyay suuqii sooga dhamaadkii 1980 ayadoona kambanigu waqtigaas qiimihiisu gaadhay lacag gaadhaysa 1.7 bilyan oo dollar sidoo kalena uu Steve Jobs halkii ku noqday milyaneer waxay haataba laakiin wax walba sidaas quruxda badan kuma sii soconin ayadoona Apple ay mar kale soo saartay kombiyuutarkoodii xigay ee Lisa mashruucan oo isla markaas qasaare weyn u soo jeeday Apple sidoo kalena kalifeen xitaa Steve Jobs laga saaray tiimka sabab la xiriir isfaham waa ka dhaxdhacay asaga iyo waliba maamulayaashiisii kambaniga asagoona markan Steve gaar ahaantiisa u istaagay sidoo kalena soo saaray kombiyuutarkiisii oo la magac baxay Macintosh kaasoo qiimo dhimis ballaaran iyo xaysiin waaliha kadib u soo hooyay horaantii waxoogaa guula laakiin guushaas ayaa ahayd oo kaliya muddo kooban ayadoona dib ay wax walba ka soo cadaadeen iyo in kombiyuutarkan uu yahay mid fashil sidoo kalena aan gaarsiisanin meeshii laga filanayay midanoona mar kale sii kordhisay dagaalkii u dhaxeeyay Steve iyo maamulayaashiisii Apple halkaasayna maamulayaashii go'aan ku qaateen in haddii aysan Steve meesha ka caydhin uu gebi ahaanba kambanigoodan dhulka gelin doono ugu dambeyntiina halkii lagu celiyay Steve Jobs taariikhda markii dhammaadkii 1984 ayadoona ay halkii wax walba ku dhammaadeen waxay haataba kadib markii uu Steve ka tagay Apple waxa uu markiiba ka howlgalay kambanigiisii kale lagu magacaabay Next halkaasuna bilaabay inuu ku soo saaro kombiyuutaradiisa oo khaaska ah sidoo kalena waqtigaas uu sameynayay ardayda jaamacadaha ayadoona kombiyuutaradan ay lahaayeen garaafkiisa iyo waliba isbedelo kale oo hor leh isbedeladaas oo ku jireen in Steve uu waqtigaas ku biiray caalamka sinimada sidoo kalena uu iibsaday shirkad yar oo waqtigaas lagu magacaabay Pixar shirkadan oo waqtigaas la timaaday filmaan cartoon oo caalami noqday waqtigaas sida filmkii weynaa ee lagu magacaabay Toy Story filmkan oo ah filmkii ugu horeeyay lagu sameeyo kombiyuutar waliba sida uu dhan yahay guushaas kadibna uu Steve mid mar ka sii dambeysay hawada sii galay hadaba dhan kale markaan soo laabana Apple bilaa Steve ayaa yadnayd mid mar ka sii dambeysay hoos u socotay ayadoona soo celinaysay oo kaliya kombiyuutaradoodii hore ee fashilka ah sidoo kalena aan lahayn haba yaraatay wax isbedela midanoona waqtigaas soo horseedeen shirkadii ay hoos u dhac samaysay in ka badan 20% waxay haataba 1990kii Apple ayaa mar kale dooratay CEO-gooda cusub oo lagu magacaabay Gil Amelio si uu bal Apple uga badbaadiyay khasaaradan xooggan ee ay wajahayso sida haataba inkastoo CEO-gan cusub uu isku dayay inta karaankiisa haddana Apple ayaa ahayd mid waqtigaas aan haba yaraatay waxba laga qaban karin ayadoona uu xaalku sidii hore ka sii daray kadib markii ay Microsoft bilowday inay ayadna soo saarto kombiyuutarada hadaba shirkadda lagu magacaabo Microsoft ayaa waqtigaas ayadna bilowday inay samayso kombiyuutarada kuwaasoo waliba ka hormarsan sidoo kalena aad uga jaban kuwa ay Apple hore u sameeysay midanoona taariikhda markii 1995 Microsoft ka dhigtay inay iibisay in ka badan 40 milyan oo unit waliba isla hal sano gudaheed halka Apple tirada intaas leeg aysan weligeed ku fikirin ayadoona dhanka kale marka laga soo tago Microsoft ay sidoo kale shirkado kale bilaabeen inay soo galaan suuqii kombiyuutarada midanoona Apple mar ka sii dambeysay ka dhigaysay inuu si dhawaatay inay gebi ahaanba albaabada u laabaan kambanigoodan ayadoona ugu dambeyntii Apple ku qasbanaatay inay ku dhaqaaqdo tallaabadii kaliya ee u banaanayd iyo waliba soo celintii ay soo celinayeen lejankoodii hore tallaabadaasoo ay idin iibsadaan kambaniga lagu magacaabay Next ee Steve Jobs ayagoona ku iibsaday lacag gaadhaysa 400 milyan oo dollar sidoo kalena ay halkii ku soo celiyeen Steve Jobs kaasoo muddo kooban laga dhigay CEO-ga Apple taariikhda markii 1997 asagoona isla markiiba Steve bilaabay inuu qashin ku daro dhammaan projectadii hore ee kambaniga sidoo kalena uu halkii ku celiyay shaqaale gaadhay 3,000 oo shaqaale oo ka shaqeynaya kambaniga midanoona uu ku damacsanaa inuu Apple ka dhigo mid diyaar u ah bil cusub sidoo kalena aan ka daba wareegin waxyaabihii hore ee maalayacniga ahaa asagoona Steve markan awoodiisa oo dhan isugu geeyay sidii uu soo shaqo gelin lahaa shaqaale ku habboon kambanigiisan hadaba isbedeladaas hortale kadib Apple ayaa mar kale soo daafiyay kombiyuutarkoodii all-in-one-ka ee lagu magacaabay iMac kaasoona isla 5 bilood gudaheed guulaan inaba la qiyaasi karin gaadhay ayadoona la iibsaday in ka badan 800,000 oo xabo kombiyuutarkan oo isla markaas lahaa isbedelo badan isbedeladaas oo ugu horeeyeen sida in uu lahaa USB sidoo kalena uu ku xiriirsamay internetka ayadoona dhan kale muuqaalka kombiyuutarkan waa mid aad looga shaqeeyay sida aan hore soo sheegnay inuu Steve mid aad ugu dheereeyay sida qalbiyada macaamiisha loo xado ayadoona shay walba laga dhigay qaabka uu macaamiilku rajaynayay isla markaasna uu filanayay midanoona sii kordhinaysa cilaaqaadka u dhaxeeya kambaniga iyo waliba macaamiishiisa hadaba isbedeladan cusub ayaa isla markiiba Apple ku soo celiyay booskii loo baahnaa ayadoona mar ka sii dambeysay la iimaanayeen isbedelo kale oo cusub sidoo kalena hor leh sida soo saaridii iBook iyo waliba in kombiyuutaradooda ay ku soo kordhiyaan programyo kale oo kala duwan sida software video editing DVD burners iyo waliba isbedelo kale oo badan ayadoona dhan kale oo mid ka mid ah productyadii Apple hawada gelin lahaa uu waqtigaas soo daafiinmay and we are introducing a product today that takes us exactly there and that product is called iPod hadaba productigan cusub ayaa productiga lagu magacaabay iPod kaasoo la iibsaday in ka badan 100 milyan oo xabo waliba isla muddo 6 sano gudaheeda ayadoona aaladan ay noqotay mid Apple u horseedo guul aan inaba caadeen sidoo kalena aad u weyn
haddaba iPod-kan ayaa ahaa aalad yar sidoo kalena ku xidhiidhaysa iTunes Store-ka ayadoona aad halkaas awood uga yeelanaysa inaad kala soo tagto dhammaan heesaha iyo weliba waxyaabaha dhegaysiga ee internetka aad uga baahan tahay dhanka kalena ay aaladan ahayd aalad xajmigeedu aad u yaraa sidoo kalena aad u qaadan kartid meel walba aad rabto weliba adigoo jeebkaaga ku wadanaya ugu dambeyntiina guulahaas isdabajooga iyo weliba soo daafididaas productyada cusub ayaa kambanigii Apple ka dhigtay in 2006 ay gaadhay qiimo gaadhay $73 bilyan laakiin guushooda ugu weyn ayaaba ahayd mid markaasuun bilaabanaysay ayadoona productigan cusub uba noqon doono midkii gilgili lahaa dhammaan caalamka oo dhan iPod, a phone, and an internet communicator. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device, iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. taariikhdu markii 2007 waxaa dhacday in Apple qabato bandhigeedii taariikhiga ah ee ay ku soo bandhigaysay mobilka iPhone kaasoona isla hal sano gudaheed la iibsaday in ka badan 1.4 milyan oo xabo sidoo kalena Apple waqtigaas ka dhigay kambaniga saddexaad ee soo saara taleefannada kadib guushii weyneed ee taleefankooda iPhone ayadoona marka maanta la joogo taleefankooda yahay productiga ugu weyn ee laga iibsada Apple kaasoona la iibsaday in ka badan 3 bilyan oo xabo kadib soo saaridiisii 2007 haddaba soo saaridii iPhone kadib Apple ayaa noqotay mid aan haba yaraatay waxba laga sii qaban karin ayadoona kambanigu intaas kadib uu cirka isku sii shareeray sidoo kalena uu isku sii fidiyay productiyo kale oo badan ha noqoto iPods, MacBook iyo weliba productiyo kale oo kala duwan halka dhanka kalena uu kambanigu bilaabay inuu sanadka sii dambeeyo soo saaro taleefannada iPhone-ka weliba ayagoo isla markaas ku sameynaya isbeddello iyo weliba inay marka si dambeeyo ku soo kordhiyaan wax cusub midaanoona Apple ka sii dhigaysan qiimahooda oo si aan caadi ahayn hawada u sii galo waxay yaataba laakiin Apple markii ay maraysay meesheedii ugu sarreysay waxaa isla markiiba dhacay arrinkii lama filaanka ah ayadoona taariikhdu markaa 2011 uu Steve Jobs go'aansaday inuu isaga tago guud ahaan kambanigii Apple si uu isla markaas diiradda u saaro caafimaadkiisa ayadoona CEO-ga Apple uu markaa noqday ninka lagu magacaabo Tim Cook oo ilaa waqti xaadirkan ah CEO-ga kambanigan ugu dambeyntiina bilowgan kadib isxasilidiisii taariikhdu markaa 5 Oktoobar 2011 Steve Jobs ayaa halkii ku geeriyooday sababo la xiriiraya kansar ayadoona intaas kadib ay Apple u bilaabatay bilaabasho kale iyo weliba hoggaan kale oo hor leh haddaba marka la fiiriyo CEO-gan cusub ee Apple Tim Cook ayaa mid aad uga aragti duwanaa Steve Jobs asagoona tiimkan ahaa mid ka fikir oo kaliya revenue-ga iyo dhaqaalaha kambaniga si ka duwan Steve oo asna mid mar walba awood saar productyada kambaniga iyo sida uu kambanigu u qancin lahaa macaamiishiisa weliba asagoo raacaya rabitaankooda midanoona si kale marka loo dhiga ahayd in haddii uu Steve yahay nin caqlilow ku ah dhanka productiga oo sidoo kalena tiim midaasna caqlilow ku ah dhanka financialka ama dhaqaalaha waxay yaataba intaas kadib markii uu hoggaanka qabtay ninkan lagu magacaabo Tim Cook Apple ayaa isla markii uu bilowday in awoodooda oo dhan saaraan dhanka financialka ama dhaqaalaha ayadoona Tim uu isla markii uu bilaabay inuu kordhiyo qiimayaashii productiga si uu isla markaas u qanciyo shareholderska kambanigan si ka duwan Steve oo waqtigiisii mid qanciya macaamiishiisa midanoona Apple ka dhigtay in kadib maamulidii Tim Cook aysan haba yaraatay wax isbeddel oo dhab aysan la imaanin aan kaliya ka hayn in sanad walba ay soo celceliyaan taleefannadoodan iPhone-ka sidoo kalena ay sanad walba ku tilmaamaan inuu yahay kii ugu fiicnaa ay soo saaraan waxay yaato inkastoo Tim Apple ka dhigay kambanigii ugu horreeyay gaadhay $3 trilyan haddana taasoo dhan uu ku bedelay sumcaddii uu kambaniga Apple hore u lahaa ayadoona halka markii hore mar walba uu Steve soo istaaga mashraxa si uu isla markaas soo bandhiga product cusub uu qof walba mid ay xamaasado ka tambadayso ayadoona sidoo kale ay macaamiishu si ogaayeen in productkan uu yahay mid dadaal badan lagu bixiyay halka marka maanta la joogay waxaasoo dhan dhulka isla galeen sidoo kalena uu qof walba iska sii ogaayay iPhone-ka soo socda ka hor inta uusan soo bixinba iyo mid ugu daran oo in qof walba uu ku sii baraarugsan yahay in iPhone-kan cusub uusan haba yaraatay waxba kaga duwanayn kii hore waxay yaataba marka waxaasoo dhan laga soo tago waa maxay sababta sanadadii ugu dambeysay kaliftay in Apple marka si dambaysa dhulka sii gasho ayadoona khasaariisay lacag gaadhay $1 trilyan walow sida aan wada ognahay uu kambanigu waqtigiisa u dambeysay uu xooga saarayay kaliya dhanka dhaqaalaha haddaba khasaarooyinkan ayaa la sheegay inay ka dhalatay maamul xumada ninkan lagu magacaabo Tim Cook ayadoona ninkan uuban haba yaraatay ka fikirin mustaqbalka fog ee kambanigan mid ka mid ah khasaarooyinkan ayaa loo sababay qaaliyeynta uu ku sameeyay taleefannada iPhone-ka ayadoona marka dib loo fiiriyo waqtiyadii hore iPhone-nada uu taleefon walba mid qiimihiisu uu gaadhay lacag gaadhaysa $650 laga soo bilaabo iPhone 4 ilaa laga soo gaadhay iPhone 7 ilaa ugu dambeyntii ay wax walba isbedeleen kadib soo saaridii iPhone X kaasoona qiimihiisa la gaadhsiiyay lacag gaadhaysa $1,000 mida waxaasoo dhan kasii darneed ayaa ahayd in dhammaan taleefannadii kan ka horreeyay ha noqoto iPhone 6, 7 iyo weliba 8 ay dhammaan isku hayaan kuwaan innaba waxba kala duwanin halka markii Apple wuxuu isbeddel ku sameysay taleefannadoodan iPhone X-ka ay uga faa'iideystay inay kor u qaadaan qiimaha taleefanka weliba si aan ka gabasho lahayn haddana kaaga darna dhibaatada taleefannada oo kaliya maaha ayadoona sidoo kale ay ku jiraan product walba oo ay shirkadan soo saarto kuwaasoona sida taleefannada aan wax si badan laga bedelin muddo 10 sano ah
waxay yaataba laakiin productiga kaliya la dhihi kara Apple way soo gadhisay muddo 10 sano ku dhawaada ayaa productiga lagu magacaabay Apple Vision Pro laakiin productigan ayaa isla muddadiiba noqday mid fashil buuxa ayadoona la iibsaday oo kaliya 500 kun oo xabo intaas kadibna ay Apple gibi ahaantiisaba ka tala baxday kadib markii ay ka weyday lacagtii ay ka filanaysay waxay yaataba mid kale uu kambanigan waayidii dambe aad caan ugu noqday ayaa ahayd ballanka baxa ayadoona shirkadan sanadadii la soo dhaafay ay sameeysay ballanqaadyo aysan marnaba fulinaynin midaanoona aan kambani sidan u weyn aan marnaba looga baranin sanadii 2007 Apple ay xaqiijisay sanadkaas bilowgiisa ay soo saari doonaan chargerkoodii noocii lagu magacaabay AirPower kaasoo waqtigaas aad u xamaasad geliyay macaamiil badan laakiin arrinkii la yaab kale ayaa in Apple ay dib u dhigtay productin wali muddo 6 bilood oo dambe intaas kadibna bilooyinka ayaa isku bedelay sanado ilaa ugu dambeyntii laga soo gaaray 2019 markaas ayna Apple si toos ugu dhawaaqday inay gebi ahaanba ka tala baxday productigan midaanoona dhabaantii ahayd ceeb aad u weyn marka loo fiiriyay kambani sida Apple oo kale ah ficilkanina aad uga cadhoodeen kaliya ma ka samarkii balse xitaa maalgeliyaashii Apple ayadoona markii la joogay waqtiyadii hore ee Steve ay Apple ahayd mid isla markii ay ku dhawaaqday product cusub isla toddobaadyo kadib soo bandhigi jirtay productigaas laakiin waqti xaadirkan Apple ayaa la dhihi karaa in waxa soo dhan aysan haba yaraatay wax dana kalayn ayadoona productida ay ballan qaadaan la arkay in la maqnaadaan muddo bilooyin haddaysan bagaarin sanado sida tusaale ahaan Apple Watch oo qaadatay muddo 7 bilood kadib ku dhawaaqidoodii sidoo kale ha ka reebin MacBook Pro asna qaatay 6 bilood iyo waliba mid ugu daran oo ah Apple Intelligence oo ah AI gu qaaska Apple kaasoo asna lagu dhawaaqay muddo sanado ka hor ilaa haddana aan meel lagu sheegin haddaba markaan soo laaban mashruucan Apple Intelligence ayaa la dhihi karaa in waqti xaadirkan uu yahay mid ka fashilay isla markaasna banaanka wax walba soo dhigay sababtoo ah dad xasuusataan Apple ma jirin waqtigeeda shirkad kaga hormaraysa dhankaasi AI-ga oo shirkadan ayaa ahayd mid ilaa 2011 isticmaalaysay AI kadib soo saaridii Siri oo ahayd aalad cod sidoo kalena waqtigeedii ahayd midaan waxba loo dhigin laakiin intaas kadib maxaa dhacay waxaa dhacday in Apple aysan kadib wax qorshaha oo lagu horumarinay aysan gebi ahaanba samaynin midaanoona sanadadii xiga ay shirkado badan bilaabeen inay soo saaraan aaladoodan sida Siri oo kale ah sida Google iyo waliba Alexa oo ay leedahay Amazon ayadoona intaas oo dhan aysan shirkadan haba yaraatay wax dhaqdhaqaaq samaynin sidoo kalena ay indhaha ka fiirsanaysay wax walba iyo waliba soo bixidii AI-ga walow aan maanta dhammaantiin wada ognahay in caalamku uu socdo dhankaasi AI-ga shirkad walbana ay u dadaalayso sida ay uga mid noqon lahayd caalamkaas ayadoona Apple ilaa waqti xaadirkan ayba ku hurdo waxaas oo dhan waxay yaataba markaan waxaas oo dhan ka soo tagno arrin kale la yaab kale ayaa sida ay shirkadan macaamiisheeda uga dhigtay kuwa ayaga maxbuus u ah sidoo kalena sanad walba ka iibsada taleefanadoodan qaaliga walow sida aan wada ognahay aysan Apple ahayn shirkadda taleefan ee ugu fiican marka la barbardhigo dhammaan shirkadaha kale ee soo saara taleefanada sidaas ay tahay haddana shirkadan ayaa sanad walba ku guuleystay inay indhaha u daboosho dhammaan macaamiisheeda oo dhan ayadoona isla markaas ku qancinaysa inay iibsadaan taleefanadoodan weliba si indha la'aan ah midaanoona maanta xitaa la dhihi kara in Apple haddii ay isla xaadirkan soo bandhigto tusaalahaan taleefanadeedii hore sida taleefanka iPhone 8 ay macaamiisheedu si indha la'aan u gadanayaan sababtuna wax kale ma ahan ee waa inay ka dhadhacsan tahay haddii uu productigan uu yahay Apple sidoo kalena ay ku xardhan tahay calaamadan Apple oo shakhsiga ka dhigi karo mid awood leh ayadoona taleefankan uu uga awood sareeyo dhammaan taleefanada kale oo dhan midaanoona ay Apple dhabaantii ugu talagashay inay ku abuurto macaamiisheeda heer ay gaadhaan in shakhsiyada qaar ay u iibiyaan xubnooda ugu muhiimsan iyo waliba awlaadooda si ay bal u iibsadaan productyada kambanigan Apple midaanoona dhabaantii waaliya marka aad u fiirsato haddaba ma kuliin taleefanadan Apple ay yihiin kuwa fashil ama aan u qalmin in la iibsado laakiin arrinka cad ayaa in haddii aad taleefanadooda u iibsato kaliya calaamadan Apple ahaanta aad isla markaas ku dhacday dabinkii ay kula rabeen waana sababta waqti xaadirkan Apple ka dhigaysa inaysan haba yaraatay wax timaamsan macaamiisheeda sababtoo ah waxay isku hubaan in macaamiishoodan ay mar horeba ugu dhaceen dabinkooda taasoona keenaysa inay ku qaaliyeeyaan sanad walba taleefanadoodan ay soo saaraan ayagoona haba yaraatay wax cusub ku soo kordhinaynin haddaba maxay kula tahay adiga sidoo kale ma ka mid tahay reer iPhone tusaale ahaan haddii lagu dhihi lahaa maanta taleefankaagan iPhone ku bedelo taleefan kale ma ku bedelan lahayd haddaba markan aanu nimaadna ninka ku dhisay lacag deyn iyo waliba garashka xaafadiisa boqortooyada ku fadhida $1 trillion ee Amazon haddaba sidoo hal nin oo guud ahaan wax walba isaga tagay isla markaasna u dhisay boqortooyadan dunida oo dhan qabsatay waliba asagoo waqtigaas aysan haba yaraatay wax lacaga sidoo kalena ku dhisay lacag deyn iyo waliba garashka xaafadiisa haddaba sheekada ninkan lagu magacaabo Jeff Bezos iyo waliba kambanigiisan ayaan ahayn oo kaliya sheekayska caadiya ayadoona ay ka buuxaan casharro iyo waliba khibradahan uga faa'iideysan karno horumarinta nafteena I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. Jeffrey Brisson Bezos waxa uu dhashay taariikhda markaas sanadii 1964 asagoona ku dhashay magaalada lagu magacaabo Albuquerque ee New Mexico waxa yaatay waqtigii dhalashadiisa Jeff ay hooyadiisa ahayd mid aad u daayar sidoo kalena aan ka qalin jabin iskuulkeeda ayadoona intaas ay u dheereed faqiirnimo iyo waliba inaysan ka nixin haba yaraatay wax lacaga
halka dhanka kale aabihii dhalay oo lagu magacaabay Ted Jorgensen uu isaga baxay guud ahaan noloshooda oo dhan kadib markii uu dhashay Jeff midanoona kaliftiin hooyadii Jeff ay markale guursanin qaxootiga sidoo kalena lagu magacaabay Mike Bezos halkaasuna Jeff ku qaatay magacan aabihiisan cusub ee Bezos waliba isagoo waqtigaas jiridaada 4 sano sida yaataba Jeff aabihiisan cusub ayaan haba yaraatay waxba ka garanin inkastoo waqtigaas noloshooda ay mid aad u adkeyd markaan soo laaban caruurnimadiisii Jeff ayaa mid aad u jeclaa tijaabooyinka iyo farsamada asaguna mararka qaar guriga ugiisa ku sameyn jiray mashruucyo yar yar oo hal abuur leh sida inuu isku soo aruriyo qalabyada elektarooniga sida raadiyaasha iyo waliba mashiinada halkaasuna yaraankii Jeff mid waxyaabo badan ka bartay ugiisa oo hore mid ugu soo shaqeyn jiray hay'adda NASA midanoona ka caawin doonta in waqtigiisa iskuulka uu isku bedelo mid ay maskaxdiisu aad u furfuran tahay sidoo kalena diyaar u ah wax walba uu baranayo haddaba waa waqtigaas markay Jeff ku dhalatay inuu barto cilmiga sayniska iyo waliba teknoolojiga ayadoona waqtigii iskuulkiisa uu ahaa mid kamid ah ardayda ugu firfircoonaan dhanka waxbarashada midanoona qof walba oo kaag dhawaa Jeff ka dhigaysay inuu si arki karo mustaqbalka uu yeelan doono cunugan yar waxay yaataba sidaas ay tahay Jeff ayay sugaysa waddo aad u dheer si uu isla markaas u gaadho meesha uu ku aaminayo marka uu Jeff jirsaday daada 16 waxa uu bilaabay inuu ka shaqo bilaabo McDonald waliba asagoo dhanka kale ka dhiganayo iskuulkiisa halkaasuna saacadii ku qaadan jiray lacag gaadhaysa $2 haddaba inkastoo aysan shaqadaasi ahayn mid uu ku qanacsan yahay Jeff haddana mid uu ku baraarugsanaa ayaa ahayd in shaqadan adag ay mustaqbalkiisa dambe dhisi doonto sidoo kalena ay ka soo saari doonto shakhsi diyaar u ah mustaqbalkiisan dhow ee waliba ku soo food leh mustaqbalkaas dhow oo ugu dambeyntii noqon doono mid uusan weligii qiyaasi doonin waxay yaataba mustaqbalkii Jeff ayaa si toos ah u bilaabmay kadib markii laga soo aqbalay jaamacadiisa Princeton University halkaasuna bilaabay inuu ku barto cilmiga fiisiiska ilaa uu ugu dambeyntii bilaabay inuu ku bedesho faculty-gan sidoo kalena uu bedesho faculty-ga electronical engineering iyo waliba computer science kadib markii uu ogaaday in physics aysan isku fiicnayn intaas kadib Jeff ayaa jaamacadiisa ka qalin jabiyay taariikhda markaad 1986 asagoona isla markaas ku jiray ardaydii ugu sarreysay fasalkiisa ee waqtigaas sida yahataba middan ayaa ahayd uu kaliya bilowga Jeff ayadoona dhammaynta jaamacadaas ay Jeff soo saarisay caalamka dhabta sidaas darteedna asaga laga rabay sidii uu riyooyinkiisa uga dhigi lahaa kuwa rumooba nasiib wanaag sida uu qof walba filanayay waxaa dhacday in Jeff isla markiiba boosas shaqooyinka kale ee kambaniyo kala duwan oo waaweyn kuwaas oo ugu horeeyeen kambaniyada kale ah Intel, Nokia iyo waliba Accenture laakiin Jeff ayaa gebi ahaanba iska diiday boosaskaas oo dhan asagoona ugu dambeyntii u shaqeeyay kambani waqtigaas bilowaa sidoo kalena lagu magacaabay Vital laakiin waqti yar uu halkaas ku qaatay kadib Jeff ayaa wareegay magaalada New York 1990 halkaasuna ka shaqo bilaabay kambaniga maalgelin sidoo kalena lagu magacaabay DEO Show and Company kambanigan uu isla markaas mid ka qaadanay mushaar aad u fiican asagoona dhanka kale kamid ah shaqaalayaasha ugu fiican ee kambanigan heer uu ugu dambeyntii noqday vice president-iga kambanigan haddaba arrinka la yaab kale ayaa in Jeff uusan waqtigaas wax ahmiyad buuxda uusan siinaynin kambanigan weyn ee uu u shaqeynayay isla markaasna uu ka qaadanay mushaarkan aadka ugu filan asagoona waqtigaas ay diiradiisu ahayd uu kaliya sida uu cashir buuxa uga qaadan lahaa kambanigan iyo sida uu u shaqeeyo iyo waliba qaabka ay wax walba u kala socdaan sababtoo ah Jeff ayaa waqtigaas ku fikirayay sidii uu uga dhex bixi lahaa noloshan shaqaalinimo asagoona ku fikirayay inuu qaado wadadiisa uu gooniyo sidoo kalena uu qaas ka ah You had a great job. I remember you had a great apartment on the Upper West Side. Working on Wall Street, and a year after we got married, I went to her and said, I want to quit my job. waxay yaataba dhanka kale Jeff ayaa sidoo kale waqtigaas bilaabay raadinta qoftii ku weynaayd riyadiisan halkaasuna kula kulmay qoftan oo lagu magacaabo Mackenzie Scott taariikhda markaad 1992 ayagoona ugu dambeyntii isguursaday 6 bilood gudahood kadib isbarashadoodii haddaba waqtigaas marka la joogo Jeff ay wax walba isugu toosnaayeen asagoona haystay family iyo xaas dhanka kalena haystay shaqadiisii uu ku qanacsanaa isla markaasna uu ka qaadanay mushaar aad ugu filnaa waxay yaataba laakiin sidaan hore soo sheegnay Jeff ayaa diyaar u ah inuu khamaartamo asagoona diyaar u ah inuu galo challenge-giisii ugu weynaa ee nolosha haddaba sanadku waa bilowgii 1994 Jeffna waxa uu kaga dhabiyay go'aankiisii ah inuu wadadiisa uu gooniyo u qaado sidoo kalena uu mustaqbalkiisa gacantiisa ku samaysto sida yaataba waqtigaas waqtiga uu Jeff ku baraarugay soo shaac bixida iyo waliba xawaaraanshaha uu ku socda aaladda internetka oo waqtigaas mid cusub haddaba waa meesha uu Jeff ka arkay fikradiisa shaqo fikradaas oo ahayd bal ka waran haddii aad samayso wax la xiriira internetka ama aad dhisto product kaas oo ku dhex iibinaysa internetka waliba si online fikradaas oo ugu dambeyntii noqotay fikradan in Jeff uu aasaaso dukaankiisa buug ee online-ka waxay yaataba Jeff iyo xaaskiisa oo nasiib wanaag ahayd mid ku raacday riyada ninkan ayaa isla markiiba ka soo wareegay deegaankoodii New York ayagoona soo wareegay Seattle si ay isla markaas halkaas uga dhisaan kambanigoodan halkaasuna Jeff mid inta ay ku guda jireen safarkoodan dhaxda ku sii dejinay qorshaha kambanigoodan cusub ugu dambeyntiina markii uu Jeff soo gaaray Seattle waxa uu markiiba u gogol xareyn geerashkiisan uu ka dhigay kambanigiisan cusub asagoona dhanka kale lacagta uu kambanigaas ku bilaabay ay lacagta keedka waalidiintiisa oo waqtigaas gaaraysa $300,000
haddaba kambanigiisana ayuu wakhtigaas la baxay magacan Kadabra magacanuuna ugu dambeyntii ka bedelay isla 3 bilood gudaheed asagoona wakhtigaas kambanigiisan ku diiwaangeliyay magacyo kala duwan sida awake.com, browse.com, bookmall.com iyo weliba relentless.com magacyadaasoo gebi ahaantoodu shaqayn waayay ilaa uu ugu dambeyntii ku adkaystay magacana Amazon ayadoona magacan uu ka keenay keenta ugu weyn dunida iyo weliba in la dhaho webiga ugu weyn magacana Amazon asagoona markaas Jeff rajadiisu ay ahayd in kambanigiisan uu sidaas la mid noqon doono suuqa buugaaga ugu weyn dunida laakiin mid uusan wakhtigaas ka warhayn ayaa ah in iska badaa in Amazon ay noqoto suuqa buugaaga ugu weyn dunida balse ay noqon doonto suuqa online ee ugu weyn dunida sidoo kalena laga helo wax walba oo maskaxda bini'aadamka ku soo dhaca haddaba saaxiibayaal intaynaan u gudbin qaybta xigta ee muuqaalkeenan waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo in haddii uusan notification ku furayn aad hadda furato si isla markaas aad u hesho muuqaalada isdaba joogga ee soo socda mahadsanid haddaba aan u gudgalno muuqaalkeenan haddaba bilowgii Jeff iyo tiimkiisan uu aasaasay ayaa ahaa kuwaan haba yaraatay wax lacag ka nixin heeray gaadhaan inay awoodi waayaan in buugaagtooda ay u iibiyaan miisas sidaas darteedna ay dhulka ku fidin jireen halka dhanka kale uu Jeff mid xaaskiisa Mackenzie u dhiibay qaybta accounting-ka walow aysan haba yaraatay wax khibrad u lahayn shaqadaas sida yaataba inkastoo Jeff iyo tiimkiisan ay ahaayeen kuwaan haba yaraatay wax khibrad buuxda lahayn haddana nasiib wanaag waxaa dhacday in fikradoodii ganacsi ay shaqayso weliba si lama filaan ah ayadoona macaamiisha ay kala kulmeen soo dhaweyn aan innaba caadi ahayn midda kale la yaabka lahayd ayaa ahayd in haba yaraatay aysan wax lacag qarash karaynin ha noqoto lacag suuqgeena ama lacag xaysiinba ayadoona uu kambanigan ku socday oo kaliya in dadyoga isku sheegayeen kambanigan buug ee online-ka ah ayadoona dhan kale uu Jeff ku qiyaasay sababta koobaad ee ka dambeysay guushoodan ay ahayd sida uu macaamiishiisa u siinayay ahmiyadda koobaad haddaba guushan degdega ayaa isla markiiba u horseeday Amazon inay hesho maalgeliyayaal tiro badan kuwaasoona diyaar u ahaa inay kambanigan maalgashtaan lacag gaadhay malaayiin dollar midanoona tallaabadii xigtay ay noqotay in Jeff uu kambanigiisan ka dhigo mid public ah taariikhdu markaad 1997 midanoona kor sii qaaday qiimihii kambaniga Amazon oo wakhtigaas gaadhay lacag gaadhaysa 54 milyan oo dollar asagoona dhan kale Jeff wakhtigaas isku bedelay milyaneer weliba markiisii ugu horeysay qiimahaasoo isla hal sano kadib farjibaarmi kadib markii uu korokac sameeyay qiimihii stooga wakhtigaas haddaba dhanka kale Jeff ayaa bilaabay in wakhtigaas uu ka fikiray tallaabadiisii xigtay asagoona macaamiishiisa mid email u dira si uu u weydiiyo waxay jeclaan lahaayeen si uu isla markaas ugu soo kordhiyo midanoona ugu dambeyntii dhalisay aragtida ah in wakhtigan laga bilaabo ay iibin karaan wax walba oo loo baahan yahay isla markaasna aysan ku ekaanaynin oo kaliya buugaagta intaas kadib Amazon ayaa wakhtigaas ka timaaday kaliya meel lagu iibiyo buugaagta sidoo kalena isku bedeshay suuq online oo dhammaystiran kaasoona laga heli karo product walba oo wakhtigaas loo baahnaa ayadoona mar walba oo productigu si siyaado oo sidaas la mid dhaqaalaha kambanigu ahaa mid korokac sii sameeya weliba si xawli ah ayadoona dhan kale uu Jeff mid ka yimaaday isla 2 sano gudaheed milyaneer sidoo kalena uu isku bedelay bilyaneer taariikhdu markaad 1999 asagoo wakhtigaas u diiwaan gashantay lacag gaadhaysa 10.1 bilyan oo dollar sidaas ay tahay haddana Jeff ayaan marnaba noqonin mid ay isfudud ku bedesho hantidaasi asagoona macaamiishiisa mid mar walba dhageysanaya codsiyadooda dhanka kalena mid shaqadiisa daacad u ah oo mar walba u taagnaa sidii uu kambanigiisan hawada u sii gelin lahaa waxyaataba laakiin guushaas degdega ayaa isla markiiba laskaga daba imaan doonaa ayadoona uu dhici doono shilkii internet ee ugu xumaa wakhtigaas haddaba intii u dhaxaysay 2000 ilaa 2002 waxaa dhacaysay inuu khasaariyay business walba oo online wakhtigaas sababo la xiriira shilkii.com shilkanuuna sababsaday in saamiyadii shirkadii Amazon ay khasaarto ku dhawaad 95% heer warbaahinada qaar ayba isku raacaan inay u dhammaan doonto shirkadan Amazon ayadoona xaqiiqdii sida wakhtigaas jirtay ee Amazon ku dhawaatay gebi ahaanba inay dhulka gasho Peak of the internet bubble, our stock peaked somewhere around $113, and then after the internet bubble, busted open, our stock went down to 6. It went from 113 to 6 in less than a year. halka Jeff nafahantiisan uu asna ka yimaado $10 bilyan ilaa uu ka yimaado 1.5 bilyan weliba isla 2 sano gudaheed ayadoona haddii ay sidaas wax walba ku sii socon lahaayeen ayba soo istaagi lahaayeen eber waxyaataba Jeff ayaan halkaas isku dhiibaynin weliba si fudud asagoona weliba khasaaradaas ka sii qaadanay dhiirigelin weliba cashir sidoo kalena shaqaalihiisa uu sheegay in kambanigiisan uusan ku xidhnayn wax istooga sidaas darteedna la rabo in businesska gudaha uu sidii hore ku sii socdo ayadoona ay Amazon wakhtigaas soo daafaydi doonto Amazon Web Service sanadii 2002 walow ay wakhtigaas ku taagnayd lugteedii ugu dambeysay laakiin service-kan ayaa Amazon ka dhigi doona mid soo laabasho lama filaan ku soo celiya haddaba AWS ayaa ahayd aalad caawisa sidoo kalena ay isticmaalaan shirkado badan oo online ah ayadoona aaladan ilaa waqti xadirkan ay isticmaalaan shirkado badan oo online ah sida Netflix, Twitch, Pinterest iyo kuwa kale oo badan si ay isla markaas daatadooda ugu kaydsadaan sida yaataba sidaan hore soo sheegnay AWS ayaa ku soo aaday waqtigii loo baahnaa ayadoona isla markiiba ay Amazon korokac aad u weyn samaysay intaas kadib ayadoona dhan kale korokacan uu ahaa oo kaliya mid bilow ah marka loo eego waxa soo socday ka sii weyn
haddaba jeef ayaa intaas kadib bilaabay sii ballaarintii Amazon asagoona soo saaridii Amazon Kindle 2006 kadib mar kale noqday mid asagii iyo kambanigiisuba ay hawada isku sii shareeraan waqtigaasina hantidiisu gaadhay in ka badan $8 bilyan midaanoona sanadba sanadka si dambaysa kor u kac sii samaynaysay halka jeefna uu ahaa mid sii ballaarintii halkii ka sii waday ilaa ay ugu dambeyntii Amazon ka noqoto kambaniga shopping ee online ee ugu weyn dunida jeefna uu ku noqdo ninka 19aad ee ugu hantida badan dunida oo dhan haddaba waxaan oo dhan ayaa ahaa 2013 ayadoona waxa soo socda ayba ka sii darnaayeen taariikhdu markaa 2013 jeef ayaa ku dhaqaaqay mid ka mid ah tallaabadiisii ganacsi ee ugu weyneyd taasoona ahayd la wareegidii wargeyskii lagu magacaabayay The Washington Post kaasuna kula wareegay lacag gaadhisa $250 milyan midaanoona dhab ahaantii ay tallaabo aad u maskax badnayd iyo in jeef uu fahansanaa in media waqtigaas uu u baahan yahay qaabkan casriga ee online-ka ayadoona faa'iidada maalgelintaasuuba isla 3 sano gudaheed ku arki doono haddaba 2016 isla 3 sano kadib The Washington Post ayaa samaysay ku dhawaad faa'iidadii ay samaysay Amazon weliba markii ay hawada ku jirtay midaanoona waqtigaas kadib ka dhigtay in jeef wax walba uu gacanta saaro uu isku bedelay dahab dhanka kale sidii caadada ay jeef ayaa lacagahaas oo dhan dib ugu celinayay kambanigiisan asagoona intii lagu guda jiray sanadadaas uu shaqaalaysiiyey shaqaale gaadhay 130,000 oo shaqaale si uu isla markaas boqortooyadiisan Amazon uga dhigo midaan istaag lahayn sidoo kalena intaas ka sii weyn midaanoona qof walba waqtigaas ku dhalinaysay su'aasha ah waqti ma ayuu ninkan noqon doonaa ninka ugu hantida badan dunida oo dhan ugu dambeyntiina waqti dheer ma aysan ka soo wareeganin ayadoona taariikhdu markay ahayd March 2018 kadib markii ay guulaystaba joog ay u soo hooyeen kambaniyadiisan uu halkii ku noqday shakhsiga ugu hantida badan dunida oo dhan asagoona hogaankii kala wareegay Bill Gates weliba hanti gaadhaysa $112 bilyan You have become the wealthiest man in the world. Is that a title that you really wanted or not? Is it a I can burden? assure you I have never sought that title. And it was fine being the second wealthiest person in the world. intaas kadib Amazon ayaa muujin haba yaraatay wax istaaga ayadoona kadib pandemiga 2020 uba Amazon siiyay awood kale oo ah inay sii ziyaadaan macaamiisha mar ka sii dambaysa ku soo xidhmaya sababo jira in dadkoo dhan ay waqtigaas ku adeeganayeen qaab online ah midaanoona jeef ka dhigaysay in hantidiisa ayba cirka isku sii shararto asagoona waqtigaas gaadhay net worth gaadhay $180 bilyan waqtigaas 2020 haddaba maanta marka la joogo Amazon ayaa kambaniga e-commerce ugu weyn dunida oo dhan ayadoona gaadhaysa qiimo kor u dhaafay $2.4 trilyan ayadoona dhan kale ay Amazon marka maanta la joogo ay isku sii fidayso suuqyo badan oo kala duwan kuwaasoonan marnaba halkan lagu soo koobi karin haddaba mid aan la ilaawi karin sidoo kalena laga qaadan karo sheekadan ninkan lagu magacaabo jeef ayaa ah in xaaladda aad ku dhalato ama duruufaha adag ee nolosha bilowgeeda aysan marnaba go'aamin karin mustaqbalkaaga sidoo kalena aad adigu wax walba bedeli karto sidoo kale haddii aad leedahay xiise ama hibo gaarana marnaba ha dayicin xitaa haddii aysan dadka kala fahmin qiimaheeda mar walbana xasuusno in horumarka weyn uu mar walba u baahan yahay halis qaadasho iyo weliba geesinimo iyo midda ugu muhiimsan oo ah inaadan marnaba isdhiibin xitaa haddii uu khasaaraha u gaadhay 95%. ugu dambeyntiina aan markaan u nimaadno boqortooyada casriga ee AI-ga ee Nvidia ahana kambaniga koowaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida haddii lagu weydiiyo waa kuma kambaniga ugu qiimaha badan dunida oo dhan waxaa hubaalay inay maskaxdaada ku soo dhacayaan kambaniyada kale ah Tesla, Apple ama Meta laakiin xaqiiqada ayaa ah in qiyaasahagaas oo dhan ay khaldan yihiin sidoo kalena uu jira kambani guud ahaanba ka weyn dhammaan kambaniyadaas taqaano oo dhan kambanigaasoo lagu magacaabo Nvidia haddaba siduu kambani sameeyay oo kaliya GPUs-ka uga qiimo batay guud ahaan kambaniyada ugu waaweyn dunida oo dhan sidoo kalena uu ku noqday hogaamiyahooda Hi, welcome to Nvidia. haddaba si aan u ogaano sheekada waalida ee Nvidia waxa ayadna sidoo kale laga maarmaanay inaan ogaano asaasayaasheedii si gaar ahaan ninkii qaxootiga ah sidoo kalena ka dambeeyay asaasta kambanigan haddaba si guud kambanigan ayaa aslaantiisa la asaasay taariikhdu markaad 1993 ayadoona ay asaaseen 3 injineer sidoo kalena lagu kala magacaabo Jensen Huang, Curtis Bryan iyo weliba Chris Malajewski waxyaataba laakiin CEO-ga iyo sidoo kale maamulaha kambanigan ayaa ninka lagu magacaabo Jensen Huang ninkan oo aslaantiisa ku dhashay wadanka Taiwan taariikhdu markaad 1963 haddaba ninkan abiya ayaa mechanical engineer halka hooyadiina ayaad macallimada iskuul sida yaataba laakiin Johnson ayaa yaraantiisa ku soo qaadan wadankiisa hooyo asagoona isla markaas yaraantiisa ay ka soo qaxeen wadankaas sidoo kalena ay u soo wareegeen wadanka Mareykanka waliba asagoo waqtigaas shiridada 9 sano halkaasuna Jensen bilaabay inuu waxbarashadiisa ka qaatay ilaa ugu dambeyntii ka qalin jabiyay sidoo kalena uu ka baxay jaamacadda lagu magacaabo Oregon State University asagoona ugu dambeyntii halkaas ka qaatay shahaadadiisa electrical engineering-ka kadib qalin jabintiisii ninkan ayaa ka shaqo bilaabay shirkadaha lagu kala magacaabo LID Logic halkaas uu ka ahaa director iyo waliba sidoo kale kambaniga lagu magacaabo AMD oo uu ka ahaa chip designer
haddaba sannadeer uu shaqadii ku jiray kadib ninkan ayaa mar kale dib loo bilaabay waxbarashadiisa jaamacad halkaasuna bilaabay inuu galo jaamacadda lagu magacaabo Stanford si uu halkaas ugu diyaariyo shahaadadiisa masterka ee mechanical engineering-ka asagoo ugu dambeyntii ay u soo ilaatay taariikhdu markaad 1993 weliba asagoo waqtigaas jiray 30 sano dhanka kale marka loo yimaado labadiisa saaxiib ee lagu kala magacaabo Cortez iyo Chris ayaa ayaguna sidoo kale ah laba nin oo isku meel ka shaqeynaya waqtigaas ayaguna isla markaas u shaqeynayay company lagu magacaabo Sun Microsystem company-gan oo isla markaas soo saarayaalka ah ee qalabka graphics-ka ee computerska haddaba saddexdan nin ayay nasiib wanaag kulmisay shaqadoodu ayadoona mar Johnson loo diray inuu hawl ka soo qabto company lagu magacaabo Sun Microsystem ay halkaas isku arkeen labada nin halkaas oo ugu dambeyntii ka bilaabantay saaxiibtinimadoodu sida yahato muddo kadib waxaa dhacday in company lagu magacaabo Sun Microsystem ay ka shaqeynayeen labada nin ee lagu kala magacaabo Chris iyo Cortez uu isbedel ku dhaco sidoo kalena ay ka guuraan nidaamkoodii hore midanoona isla markaas labada nin caqabad ku noqotay ayagoona ugu dambeyntii ku aasaday inay isaga tagaan guud ahaanba company-gii haddaba ka tegidii ay ka tageen company-goodii kadib labada nin ayaa waqtigaas ku aansaday in la gaadho waqtigii ay iskood isku taagi lahaayeen sidoo kalena ay aasaasan lahaayeen company-gooda u qaaska ah laakiin waqtigaas la joogo wax walba waa riyo oo haba yaraatay waxay ka naxaan ma jiraan sidoo kalena ay ku aasaasaan company-gooda u gooniya ayagoona isla markaas u baahnaa caawimaad iyo weliba sidoo kale garab istaag haddaba waa markay wacdeen saaxiibkoodii ugu dhawaayay Johnson si uu isla markaas ugu soo biiro tiimkan laakiin dhibaatada ayaa ahayd in Johnson uusan haba yaraatay wax danayna u haynin arrinka saaxiibadiisa waqtigaas la joogo walow fikradu ay ahayd mid aad u cajabisay xisaabtan ku darso labadan saaxiib ma aysan u caddayn nooca company ay rabaan inay dhisaan waqtigaas iyo midda ugu darneed oo ahayd in ninkan lagu magacaabo Johnson uu waqtigaas haysta shaqo fiican oo uu ka qaadanayay mushaar aad ugu filan sidoo kalena ay ku tiirsanaayeen family dhan oo asagu wax ka sugaya midanoona dhab ahaantii aad ugu adkeyd inuu shaqadiisa uga tago company aan la isku hubin waxa uu noqon doono waxay haataba ku celcelin badan iyo sidoo kale codsi joogta oo uga imaanaya labadiisa saaxiib kadib Johnson ayaa ku qasbanaaday inuu ugu dambeyntii ku biiro asxaabtiisa sidoo kalena uu ka ogolaado codsigoodii halkaasoo inuu ugu dambeyntii saddexdan nin go'aansadaan in kulankoodan taariikhiga uu ka dhaco maqaayadda lagu magacaabo Denny Diners si ay halkaas uga wada hadlaan mustaqbalka company-goodan ayadoona kulankaas taariikhiga kadib ay raggan ahaayeen kuwa mar walba ku kulma maqaayadan maalin walba si ay diiradda ugu saaraan company-goodan ugu dambeyntii noqon doona company-ga teknolojiga ugu weyn dunida ee Nvidia waxay haataba ugu dambeyntii raggan ayaa isku waafaqeen company-goodan ay ka dhigaan wax la xiriira computerska xisaabtan ku darso waqtigu sagaashameeyadii oo computerska waqtigaas ma aysan lahayn rajo si weyn oo waqtigaas bay soo shaabaxayeen waxay haataba laakiin saddexdan nin ayaa markaas qiyaasayay in computersku ay waqti dhowba noqon doonaan kuwa si degdeg ah ku fida sidoo kalena aan laga maarmin ayagoona isla markaas bilaabay sidii ay qayb uga noqon lahaayeen casriga computerska laakiin su'aasha ayaa ahayd sidee ay uga mid noqon karaan casriga computerska iyo PC-yada haddaba raggan jawaabtooda ayaa ahayd video gameska sababtuna wax kale ma ahayn waa in waqtigaas kombiyuutaradu ay ahaayeen kuwa loo sameeyay oo kaliya qaab shaqo sidoo kalena aan lahayn haba yaraatay wax entertainment-iya ayagoona dhanka kale kombiyuutarada waqtigaas aysan lahayn sameecado mikrofon iyo weliba muuqaalo ama wax graafikisa midanoona kombiyuutarada waqtigaas ka dhigaysa kuwa aan wax faa'iido buuxda lahayn sidoo kalena caajisa waxay haataba Nvidia iyo sidoo kale asaasayaasheedan ayaa waqtigaas bilaabay inay ka fikiraan sidii ay kombiyuutarada ugu soo kordhin lahayn 3D graphics si isla markaas kombiyuutarada ay ugu sahlaanaantay in lagu ciyaari karo video gameska sababta ugu weyn ee ay u doorteen video gameskan ay ahayd marka laga soo tagay inay ahaayeen kuwa qurxinaya kombiyuutarska haddana video gameska ayaa waqtigaas ah kuwa aad u gadmeeyay waxay haataba laakiin saddexdan nin ayaa markaas ah kuwa aan haba yaraatay haysan wax dhaqaale ay ku bilaabaan iyo weliba magac ay u bixiyaan company-goodan ayagoona isla markii ay ideyada heleen bilaabeen inay guda galaan sidii ay u heli lahaayeen waxoogaa dhaqaalaha sidoo kalena ay ku bilaabaan company-goodan cusub ayadoona ugu dambeyntii ay u sahlaanaatay inay isku soo ururiyaan lacag gaadhaysa $40,000 oo waqtigaas ah haddaba waxaa soo hadhay magaca waxay haataba magacan ayaa magac laba macno leh ayadoona ay asaasayaasha company-gan ay markii hore ahaayeen kuwa isticmaalay ereyga NV oo ay uga soo gaabiyeen next version ayagoona labadan xaraf si ay magac buuxa uga dhigaan ay isticmaalaan ereyga Laatiinka ah ee Nvidia ayagoona halkaas ugu dambeyntii magacan Nvidia la baxay 5 Abriil 1993 sida yaataba raggan ayaa isla markiiba bilaabay inay soo iibsadaan qalabka PC-ga oo aan waqtigaas ahayn sida uu maanta yahay ayagoona bilaabay inay kala dhigdhigaan si isla markaas ay u bartaan qaabka uu u shaqeeyo waxay yaataba inkastoo wax walba sidii loogu talagalay ay u socdeen laakiin dhibaatada ayaa ahayd in 40,000 aysan marnaba ku filnayn sidoo kalena aan marnaba lagu dhisi karin boqortooyadan technology ayagoona isla markaas u baahnaa garab joog saxa si uu mashruucan ugu hirgalo nasiib wanaag maadaama ay saddexdan ahaayeen kuwa waqti badan ku soo qaatay caalamka technology-ga waxaa sahlanayd in xiriiradii ay hore u soo samaysteen ay garab weydiisaan ayadoona ninkan lagu magacaabo Johnson oo isla markaas xiriir qoto dheer kala dhaxeeyay madaxdiisii hore ee LIC Logic midanoona keentay in ugu dambeyntii ay halkii ku helaan maalgelin gaadhaysa $20 milyan sida yaataba laakiin Nvidia ayaa isla markiiba suuqa ku soo gashay guuldarraan inaba caadi ahayn ayadoona guuldarradaas ay uga timaaday qalabkoodii ugu horreeyay ay suuqa ku soo galeen ee lagu magacaabayay MV1
qalabkan oo inay isla markaas soo saareen dhammaadkii 1995 haddaba inkastoo qalabkan si fiican looga shaqeeyay sidoo kalena ay wax walba dhammaystirnaayeen asagoona isla markaas lahaa 2D iyo weliba 3D graphics iyo weliba muuqaal samayn aad u sarreysa haddana nasiib xumo isla markii ay suuqa soo galeenba waxaa dhacday in hawada lagu cuno sidoo kalena ay Microsoft suuqa kala wareegto ayadoona isla markaas qasaaradan degdega ayba kaliftay in la joojiyo mashruucii xigay ee MV2 mashruucan ay ugu talagaleen inay ku xijiyaan waxyaataba laakiin aasaasiyaashan ayaan halkaas isku dhiibin ayagoona cashir buuxda ka qaatay qasaaradan xoogan sidoo kalena isku diyaariyo mashruuc kale oo ay markaas awoodooda oo dhan isugu geynayaan mashruucan oo ahaa Riva 128 haddaba waxaa xusid mudan in waqtiga ay Nvidia soo saaraysa mashruuca Riva 128 uu ahaa rajadoodii ugu dambeysay ayadoona haddii uu mashruucan qasaaro ay halkaas ugu dhammaanaysa riyadii ay sanadadaas oo dhan soo dhowdhoobayeen sida yaataba nasiib wanaag waqtiga iyo dadaalka ay galiyeen Riva 128 kuma darin ayadoona isla markaas qalabka noqday midkii suuqyada dib ugu soo celin lahaa dhanka kale qalabkan ayaa sidoo kale lahaa GPU aan inaba caadi ahayn sidoo kalena la tartami kara dhammaan tartamayaashiisa haddaba ugu dambeyntii markuu Riva 128 sidaas suuqa soo galay waxaa dhacday in muddo isla 4 bilood gudaheedba lagu iibsaday in ka badan 1 milyan oo xabo halka marka la barbar dhigo qalabkoodii hore ee MV1 la iibsaday oo kaliya 1 xabo midaanoona 1997 Nvidia uga dhignay sanadoodii ugu wanaagsanaa ay soo maraan ayagoona sanadkaas wax walba dib u soo laba ceshtay And that time, 1997, was probably Nvidia's best moment. And the reason for that was our backs were up against the wall. We were running out of time. We were running out of money. And for a lot of employees, running out of hope. haddaba intaas kadib Nvidia ayaa mar kale bilowday inay shaqadooda si laba jibaaraan ayagoona isla markiiba bilaabay inay isla sanad gudaheedba ay soo saaraan mashruucoodii xigay ee Riva TNT ayadoona mashruucan lagu magacaabo Riva TNT kadib ay Nvidia si toos oo noqotay company public ah midaanoona ka dhigan in markan ay yihiin company la aqoonsan yahay sidoo kalena wax walba si fudud ku heli kara si ay isla markaas u xaqiijiyaan wax intaas ka sii weyn haddaba tallaabadii ugu horeysay ay Nvidia qaaday waqtigaas ayaa ahayd soo saaridii mid ka mid ah produktyadoodii ugu wanaagsanaa waqtigaas oo ahaa jibkii lagu magacaabay GeForce 256 jibkan oo isla markaas ah mid aan suuqyada hore loogu arkin ayadoona sidoo kale jibkan ah mid sii kordhinay sidoo kalena fudud ka dhigay shaqada computerska ayadoona dhanka kale lahaa application badan oo dhanka gamingka sida yaataba taxanaan lagu magacaabay GeForce ayaa markaasuna mid bilowday dhanka kale Nvidia ayaa sidoo kale heshay waqtigaas mid ka mid ah dealkoodii ugu weynaa dealkaas oo la galeen shirkada weyn lagu magacaabo Microsoft ayadoona dealkaas waa dealkii weynaa ee Xbox haddaba labadan shirkad ayaa isku qacan qaaday dealkan qiimihiisu gaadhay 500 milyan ee Xbox ayadoona Microsoft ay u qacan gelisay shirkadda Nvidia si ay uga shaqeyso mashruucan weyn ee Xbox ayadoona ay Nvidia mashruucan u isticmaalisay jibkoodii ugu dambeeyay waqtigaas lagu magacaabay GeForce 3 oo ay soo saareen 2001 haddaba fursadahan isxigxiga ayaa Nvidia ka dhigtay mid uu sii furfuray wadooyin kale oo ah inay sii xaqiijiyaan waxaan hore loo arkin midaanoona sanadkaas ay Nvidia heshay dealkan Xbox ka dhigtay in revenue-ga company-ga uu 3 jibaarmo sidoo kalena uu kor u dhaafay $1 bilyan haddaba saaxiibayaal intaynaan qaybta kale u gudagelin fadlan ha ilaawina channelka subscribe saarato si muuqaalada xiisaha badan ee aan soo wadnay aysan ku dhaafin ahna gudagalna muuqaalkeena dhanka kale intii waqtiyadaas lagu guda jiray Nvidia ayaa sidoo kale bilowday inay iibsato dhammaan kambaniyada ay islaayeen waxbaad ka faa'iideysaan sida yaataba Nvidia ayaa waqtigaas xaqiijisay ujeedadoodii ahayd inay soo saaraan jibka ugu wanaagsan ayagoona xaqiijiyay ujeedadaas weliba waqti kooban gudaheed sidoo kalena soo saaray GPUskii ugu wanaagsanaa ayagoona kor u qaaday caalamka graphics-ka iyo weliba design-ka haddaba inkastoo waqtigaas Jensen ahaa mid taagnaa meeshiisii ugu sarreysay haddana midda kale uu sii ogaa ayaa ahayd in haddii uusan booskiisa xajisanin sidoo kalena wax yar oo qalada sameeyo uu isla markaasba dhulka galayo sidoo kalena hoggaanka lagala wareegayo ayadoona waqtigaas la tartamayaasha Nvidia sida ay taloo kale ay markaas ayaguna ahaayeen kuwa xawli ku socday waxyaataba laakiin waqtigaas Nvidia ayaa ahayd oo kaliya kuwa haystay dhanka gaming oo kaliya ayadoona ninkan lagu magacaabo Jensen uusan markaas ku qanacsanin inuu kaliya qabsashada hal suuq oo waxa uu rabay in boqortooyadiisana isku maamusho waxyaabo kale oo badan asagoona isla markaas diyaar u ah goorta GPU-yadiisan awood badan loo isticmaali lahaa meel kale sida yaataba sheekada dhabta ay kaliftay in Nvidia ay ka soo gudubto kaliya shirkad u sameeyay suuqyada gamingka GPUs awood badan sidoo kalena ay isku bedesho shirkadda ugu weyn dunida waqti xaadirkan ayaa la sheegay inay soo bilaabantay sanadadii 2000 ayadoona qolo cilmi baadhista sidoo kalena samaysa baaritaanada ay isticmaalaan GPUska Nvidia midaanoona natiijada ay kala kulmeen ay la yaab ku noqotay ayagoona ka warhelay in baaritaano maalmo iyo weliba toddobaad ku qaadanayay markii hore ayba hadda ku sameyn karaan muddo saacada ah marka ay isticmaalayaan GPUska Nvidia midaanoona dhab ahaantii waqtigaas ninkan lagu magacaabo Jensen ku sii dhiirigelisay in company-giisan uu qaado casri cusub And one day, about 6 years ago, a whole bunch of researchers discovered that our GPU was perfect for deep learning.
haddaba isla waqtiyadaas ninkan ayaa bilaabay inuu dhexgalo sidoo kalena uu ku biiro caalamka deep learning iyo weliba suurtagalnimada AI oo waqtigaas bilow ah sidoo kalena aan la isku hubin waxa uu noqon doono iyo weliba inuu gaari doono meesha uu maanta marayo laakiin kambanigan lagu magacaabay Nvidia ayaa waqtigaas qaatay halistan aan la isku hubin ayadoona Jensen uu qaatay go'aanka lama filaankaas sidoo kalena uu ku daafeeyay wax cusub midanoona dhalisay waqtigaas ay isku daygooga sameeyaan sidoo kalena ay maalgeliyaan sidii ay u heli lahaayeen cilmi baarayaal AI oo la isku hubo ayadoona dhab ahaantii talaabadan ay Nvidia waqtigaas qaaday ay bedeshay kaliya maaha kambanigooda ee weliba sidoo kale caalamka technology-ga oo dhan midanoona ugu dambeyntiina si wanaag ka faa'iiday weliba si aan inaba caadi ahayn dhanka kale waqtiyadaas u dhexeeyay 2000 ilaa 2010 Nvidia ayaan ahayn oo kaliya ku qarash gareynayay AI ayagoona dhanka kale isku dhex waday shaqooyin kale oo badan sida inay heshiisyo la gaadhaan shirkadaha baabuurta ee automatic-ga ayagoona dhanka kale soo saaraya jibyo kale kuwaas ay u sameeyeen taleefanada halka dhanka kalena ay ahaayeen kuwa sii wada soo saaristii GPUs-kooda iyo weliba taxaniya GeForce sida iyo haataba ugu dambeyntii waxaa la gaadhay waqtigii ay intaasoo sano sugayeen sidoo kalena ay isugu geeyeen cilmi baarayaashooda oo dhan waxaasoona ahaa artificial intelligence ama caqliga macmalka ee AI ayadoona isla markaas la gaadhay waqtigii ay wax walba bannaanka imaan lahaayeen sidoo kalena la ogaan lahaa meesha uu gaari karo cilmigan cusub ee AI haddaba waa markii la soo daafeeday OpenAI ama sidaa u taqaana ChatGPT sida iyo haataba sidaan dhammaantiin wada ognahay curriyaashan sida ChatGPT oo kale ayaa u baahan process badan si uu u xalliyo waxyaabaha loo dirayo weliba si dhaqso ah isagoona isla markaas u baahan GPUs aad u awood badan Our advances depend on GPUs being fast. Speed of our computers is in some sense the lifeblood of deep learning. haddaba qiyaas kambaniga ay ku qaadatay waqti badan sida uu dhisi lahaa GPUs-kaas awoodda badan ee qaban kara shaqadan waad saxan tahay Nvidia sanado ka hor cidna isma lahayn ee ayaa noqon doona mid loo baahan doono sidoo kalena faa'iido leh laakiin maanta dhammaantiin waan aragnaa heerka uu marayay sida uu cirka u galay midanoona Nvidia ka faa'iidaysashadaas ay ka faa'iidaystay ee ay ka dhigtay inay ka faa'iido lacag gaadhay balaayiin dollar sidoo kalena ay isku bedeshay kambaniga ugu weyn dunida ayadoona marka laga soo tago OpenAI ay sidoo kale Nvidia isku sii fidisay AI kala duwan kuwaasayna ayadu power siiso haddaba Nvidia ayaa maanta la dhihi karaa sababta ugu weyn ee ay ku dhaaftay dhammaan kambaniyada ugu waaweyn dunida oo dhan ayaa ah inay la jaan qaaday sidoo kalena ay maalgashatay casri cusub ayadoona la dhihi karo in guushooda ugu weyn ay ka timaaday dhankaas iyo AI dhanka kale waqti xaadirkan la joogo kambaniga Nvidia ayaa ah mid ay ku tiirsan yihiin sidoo kalena ay ku dhaqdhaqaaqaan kambaniyo badan oo aad u waaweyn ayadoona markaad fiiriso wax walba u baahan xawaaro sare iyo sidoo kale GPUs awood badan ha ahaadaan shirkadaha AI shirkadaha gaming iyo weliba xitaa shirkadaha crypto ay tahay shirkadani mid awood siisa haddaba ugu dambeyntii kambaniga lagu magacaabay Nvidia ayaa bisha noqday kambanigii ugu horreeyay ee xidhay tiro gaadhaysa $4 trilyan asagoona isla markaas afka ciidda u daray dhammaan kambaniyadii ugu waaweyn caalamka oo dhan sida Apple iyo Microsoft oo waqtiyo badan hoggaanka hayay midanoona inta uu ninkan lagu magacaabay Jensen uu hoggaanka ayaa aan marnaba istaag lahayn haddaba adiga maxay kula tahay maadaama uu Nvidia waqti xaadirkan yahay kambaniga ugu weyn ma kula tahay in booskeeda ay sii xajisan doonto mise isla muddo yar kadib hoggaanka waa lagala wareegi doonaa sidoo kale haddii aad muuqaalkan dhamaystay fadlan ha ilaawin inaad muuqaalkan like saarato sidoo kalena aad asxaabtaada la wadaagto kana war doonto muuqaalada xiisaha badan ee aan kusoo gudbina channelka adigoo ku dhufanay thumbnailada shaashada kaaga muuqanaya